munaasabadan oo xariga looga jariyay xarun loogu talagalay in lagu nafaqeeyo caruurta da'adoodu ay ka yartahay 5 sano ee ay haysato nafaqa dari iyo xaruno kale isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir taasi oo soo qabanqaabiyay maamulka isbitaalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho xaruntan ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa daryeelka iyo xanaaneynta quudinta daweynta caruurta Soomaaliyeed ee la ildaran xanuunada iyo nafaqa darida haysata dhallaanka yaryar Professor Ibrahim Ali Uker oo ka socday hay'adda Concern ee gacan weyn ka geysatay dayactirka xaruntan ayaa ka warbixiyay doorka ay ka qaadatay hay'adda Concern howlaha lagu horumarinayo isbitaalka runtii waxa waay ma aha dadaal kaliya Concern ma aha waxa waay dadaal isbitaalka lafta dadkii jooga waa dadaal wasaaraddu lafteeda ay mar walba wixii culays nagu noqdo ay nala fududeynaysay marka haddii aan saa loo wada shaqeynina waxba ma imaanayaan madaxa daweynta xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Abdulqaadir Weheliya Afrax ayaa sheegay in xaruntan ay qayb weyn ka qaadanayso baahida caafimaad ee haysata caruurta Soomaaliyeed waxaan ilaha marka arinta wax badan ay baraysaa markaan leeyahay ma ahan in mushkiladii taagneed ay xal iskaliyo waxay baraysaa waxa la yiraahdo self sufficiency inaan annaga inaan wax qabsan karno inaan aragno agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Dr. Fartuun Shariif Maxamed ayaa sheegtay in maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir uu wado howlo dib u dayactir looga sameeyo guud ahaan isbitaalka waxayna tilmaantay in isbitaalka ay ka jirto baahiyo dhinaca dayactirka qaybtan waxa aad iyo aad gacan looga siiyay quruxdan amaanta u jeedin inay physical rehabilitation fiican ay hesho hay'adda Concern worldwide aan ilaah ugu baryayno mashruucan sidii u hirgelisay iyo hay'adii kala qayb qaateen iyo in qof walba oo gacan ka siiyay hay'adda UNICEF dhamaan teamka Shine waxaan leeyahay ilaahay bedel qeyr qaba hadii maalkiin ha idinku siiyo Soomaali cidna uma maqna ceelna uma qadna hadaysan gacmaheeda aysan wax intay furaan aysan wax dhiibin hay'adaha Soomaalida ah ganacsatada cid allaale dawladda oo runtii isbitaal dawli ah dawladda lagu sheegay waa shacabka haduusan kaalintiisa muujina ma daawoweyso baahi kasto aad soo bandhigato marka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan haday qurbo joog yihiin iyo kuwa dalka jooga hooyooyinka Soomaaliyeed oo isbitaalkan oo hooy u ah runtii isbitaalka kaliya ay ku faanaan ah waxaan rajaynayaa inay baaqiga maqli doonaan qaybaha dhimanna aanan ka sugin hay'ado ajaanib ah inay noo dayactiraan Soomaalida isku laabato Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho